odaygii ay lahaayeen Maraykanku ninkii noo keeno noo sheegay meelu jiro waxaan siinaynaa $500,000 marna ay la gaareen $25 milyan ay gaarsiiyeen xaqaani soo garan maysaa wasiirka arrimaha gudaha ka dhigan Taliban wasiirka arrimaha gudaha magacaabeen maxamed mullah umar wadaadkii Taliban asaasi wiilkiisa wasiirka shaandhiga ka dhigeen nin walba ninku ka daraa ee Maraykan uga daraabay soo magacaabeen markaad wuxuu leeyahay Taliban dagaal bay bilowday maraba nabad ka dhaxaysa labaatan sano soo baabiinay tusaale gaaban Afghanistan Soomaaliya waxa ka socda qolii reed dubayna masaakiinta 20 sano la dhaqaajin way xabad waxa laga qaadi way say u soo socday ma dalku ku qabsadeen adduunka dhan baa isku tagay la dhaqaajin waa wixii xabadii awood laga keenay waxa la rabaa in laga keeno media iyo iclaam iyo boota xuquuqda dumarka keena tii shiicada keena tii habraha keena tii duqoyshinka keena oo 20 sano diga qaadi weyday qori caadida diga qaadi weyday iska ilaaliyo dhagarta la isku wado tusaale kale in siinaya gaalada adduunka joogtooda ama ku xataa gaala raaceenka ururay leeyihiin soo ma tartama urur walba markuu intuu tartamo doorasho la soo gal uu guuleysto dawladda asaga soo dhisa lagana hadli karo Maraykanka fiiri Yurub fiiri kuwana dhex joogtaan fiiriya axzaabtu marka intay soo tartamaan nin walba mabdiisu keenaya barnaamijkiisa oo isku sharaxayo keenaya dad ay doorataan bulsho waxa idin qaban haya canshuurtan dhimahaya maxaan kaloon qabanaya maxaabiistan kan yeelahaya hawlgabkan wax siin haya caafimaadkan kordh alaabu ka sii deyn waa la tartami xisbi adkaani xisbiga markuu adkaado muxuu sameeyay dawladda dhan asaga soo dhisay juqna lagama dhigi karo cidoo doono keensanaya magacaabanaya hadduu tabar waayo oo nus keeno waxa la wuxuu la midoobayaa urur kale oo soo dhawaado asoo ku xigu gaashaan buursanaya labadooda isku tagay maxay soo dhisayaan dawladda maamulay 10 sano dalka juqna laga media kama hadli karo waa sharci agtooda Taliban mashruucii taagan waxay anagu yeelimayna wadankan aan isku maamulno inaad dagaal diyaar garoodo waxa la iskansiyo waa la duuyo way soo dagaalaan way guuleysteen qabsada dalkii had maxaa leeyahay dadka waa inaad dawladdu wax ka siisaan oo seen oga sii ana ba guuleystay tara markuu adkaaday madad wax ka sii dawladda baydan markuu adkaadayna hay macaawi waxba la iskama sii ururku barnaamijkiisa hadduu guuleysto asaga qaanuunkooda xunka muxuu qorayaa asaga dawladda soo dhisahay Iran baa xukuumada waa in shiicada la keeno bal khad joogto Masaar Shariif waxaas wala keeno nin walba kiisa la ordahaya wadaadkii miskiinka akhwaanka maxaa ku dhacay waagi Masar bay guuleysteen markaas leeyahay waa inaad keentaan dawlad xukuumad shaamila oo seen u keenay anaba guuleystay gaalnimada inaad isku agaasintaan xataa gaalada inima ogolo gaalnimada qudhigeeda rabadaad qaadata oo ku raacdaan laftirkeeda gaalnimada idimay ogolo inaad isku agaasintaan diin iska badaa iyo islaamnimada diin toos joojiba dunidan marka waxay idinka baahan tahay faham bay idinka baahan tahay marka nimankaasi wixii laga keeni waayay isheegay qori xaaradii xabad laga keeni waxa la rabaa in laga keeno bal gurdo iyo media laga keeno ayaguna way fahansan yihiin nimanka reed dubweyn niman aad u qiimo badan weeye marka meelo badan laga fiir anaguna waan jecelahay misaalkan ku haysto kaliya howlaha hoos ka xariiqay goono way odaygii ay lahaayeen Maraykanku ninkii noo keeno noo sheegay meelu jiro waxaan siinaynaa $500,000 marna ay la gaareen $25 milyan ay gaarsiiyeen xaqaani soo garan maysaa wasiirka arrimaha gudaha ka dhigan Taliban wasiirka arrimaha gudaha magacaabeen maxamed mullah umar wadaadkii Taliban asaasi wiilkiisa wasiirka shaandhiga ka dhigeen nin walba ninku ka daraa ee Maraykan uga daraabay soo magacaabeen markaad wuxuu leeyahay Taliban dagaal bay bilowday maraba nabad ka dhaxaysa labaatan sano soo baabiinay nimanka reed dubayna anagu way naga fiican yihiin xagga adkaysiga iyo fahanka ay gaala fahansan yihiin idinku ahlu tawxiid oo salafiya sheeganaya meel badan midka ka fiican yihiin waxayna haystaan bulsho u diyaara bulsho u diyaara inay diinkaas waxay ka yaqaanaan haba kharibnaada haba khaldanaada ay dabaqaan
laakiin inagu dulqaadka waa inaga dhammaaday kii yidhahda waxbaa isku dayey adaaba ka hor imanba oday baan waa ku yidhi maad meel heblo aad wax ka qabatid cali shucaab uu ahaa wafaqahu allah ogaadayn waxaan idhi maad alaabti waagii sabansabanka intaad diyaariso aad dagaalantid ood urur noo asaastid oo nimankan ogaadayn la gumaysan axmaarada ka kicisid wuxuu yidhi 2009 mid ahayd wuxuu yidhi inta Soomaaliya inta Itoobiya Soomaali galbeed shidaalku ku daadsan yahay dagaalami maayo meel walba shidaal baa ku daadsan oo maxaa jiraan idhi hana gubina bay ku hayaan hana gubina wanaga guud hana gubina buulka tagtay waxa ku bilbilan buudi gaas iyo foosto gubanaysa marka waxa uu kulligiin hana gubinaad ku haysaan waagi xuduudda lidin qaybinaya baanka garan baa oday baa gabiya Soomaaliyado waagi waa goorma hadda waa konton dhowrkii xuduudan gobolkan Soomaaliyeed kala jajaray Itoobiya Somaliland Puntland Djibouti koonfur waqooyi waagi la qaybinay wuxuu la yaabay seeraha la jeexay geedaha la baabina waa seerihi markii la jeexay horreys dawaysi waxaan ka xusuustaa wuxuu yiri qayrkay haday toban yihiin qodax ma riixeena buuri qayrkay buuri haday toban yihiin qodax ma riixeen gaalkan seeraha ii jeexjeexay wax dhaqaaqo waay keligii baa dareensa warka daayay buuri hawshan ma aragtaa wanaga dab iman doontaa toban wiil hadan heli lahaa buuri seerahan lama sameeyeen qayrkay haday toban yihiin qodax ma riixeen buuri marka hadii wixii la fahmo waxaad u baahan tahay garab iyo gacal laakiin tolka oo dhan shidaal ku bilbilan yahay abwaan maxaad samay si kale ma jirto fariintu waxa weeye diinkeena barta ku dhaqma dulqaad u yeesha u gagsada ilaahayna uga cabsada intaan baa fariintu ay tahay